anaga markasta waxaana udoodayaasha xuquuqda aadamaha iyo joojinta xumaanta wasaaradda shaqadeeda saas waaye marka maadaama idinka tihiin dadkii raba inay dacatiina joojiyaan anaga waxaan go-aansanay inaan mar walba tababarada iyo muxuu ahaye toosinta iyo sida loo rabo in dadkaas wax loogu qabto in tababaradooda aan kor idinku qaadno oo aan wada shaqeyno kadib dambeetana wasaaradda iyo booliska ama ciidamada wadanka jooga nooc kasta kala sugid iyo boolis iyo militariba wada shaqeyn baanu leenahay maxaa yeele wasaaraddeena maadaama ay tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo joojinta dhibaatooyinka ku dhacaya falalka xunxun ee dadka lagula kaco gabar iyo wiilba in la joojiyo ay tahay dadkii la joojin lahaa waa dadkan waaye waxaa la rabaa tababarada aad ka faa'iidaysataan oo aada muxuu ahay arrintaas inta aad maskaxdiina si fiican u gasho wadan hadduu amni waayo ama dadkiisa ay nabadgelin waayaan dowlad ma noqdo waa in horta sharciga lagu fuliyo ee cabsadaa oo aad sharcigii aad ku qaadaan marka qof kasta wuu nabadgelaya bani-aadamka horta dhibnaba lagu waynaya laakiin haddana waxaa yaraanaya waxyaabahaas oo kale taageeraya gabar iyo wiilba waxaa la rabaa marka inaad ka faa'iidaysataan aana u joogsataan aada la dagaalantaan taxadiyada ku dhaco dadkiina